ilaahay wuxuu ka dhigay xaajada ama yani bani aadamka ku jirta sidii bensiinka oo kale bensiinka meelaha yaal soo maarka inuu meel ku xiran yahay baabuurka markii lagu shubaayna ma lagu rusheeyaa baabuurka maya meel maxaa jirta furan oo hadhow xataa furaha lagu xiraa markii xataa hadhow la xiraa ma la iska laabaya de maxaa la sameeyaa furaha lagu xiraa meesha bensiinka lagu shubo furaha lagu xiraa baabuurkiya kicinaysaa way dhaqaajinaysaa meeshaa rabtaa ku aaday laakiin haddaan bensiinka meesha aan u xirin oo baabuurka iskaga rusheeyo ama markuu meesha shidaalka yaala aanan meel shidaala ku shubin maxaa dhacaya markuu dab yar arko maxaa ka dhacaya inay meeshii qaraxdo baabuurka aad meesha fiican ku gaar rabtay inuu kugu holco xaajada marka bini aadamka ilaahay ku abuuray waa saas oo kale ilaahay muxuu u yeelay meelo iyo waqtiyo loogu talagalay iyo si fiican oo loo gudanayo ilaahay u yeelay waxaa isweydiin mudan maa hiya alusra qoys maxaa la dhahaa maa huwa mafhuumu lusra qoys maxaa waay erayga usra waxay leeyihiin asara ayay ka timid af carabiga markii luqad ahaan la fiiriyana waxay leeyihiin waa wuxuu ku tusayaa altaqyiid waalimsaak waataraabut wax isku xiran oo adag ayuu ku tusayaa sharcanna maxay leeyihiin sharcan waxaa weeyaan saddex waxyaaboodu qoys muslim ah islaamku gaalada mahaya gaalada sidii qoys u arkaan waa sheegi doonaa laakiin islaamku qoys muslima markuu leeyahy waa saddex wuxuu ka koobayaa hooyo iyo aabbo ama wiil iyo gabar iskugu yimaaday oo iskugu xirmay caqdi zawaadin sharciyin isku imaatin sharci ah zawaaj sharci ah guur sharci ah laba qof oo iskugu timid oo hadhowna ilaahay ay ka dhasheen caruur ay ka dhasheen kaasa waxaan dhahaynaa qoys way ballaariyaan marka waxay leeyihin alusra almumtada waalusra annawawiya qoyska ma aragtay ballaaran ee adeer iyo abtiyaalihi eedooyin ay soo galayaan iyo qoyska qaaska ah aabbay hooyo iyo caruur ah laakiin meesha waxaa xasuusataa horta koob muxuu ka bilowday laba qofood oo lab iyo dhadig ah oo isku xiraayana uu yahay caqdin sharciyin heshiis sharci ah oo ilaahay magaciis ah uu isku xirayo kadibna ilaahay uu ballaarinayo qoyskaas oo qaraabo iyo caruur ay ka dhalanayaan qoys islaamku kaas uu yaqaanaa gaalada laakiin meeqa nuuco qoysasay leeyihin ma taqaan waxay leeyihiin waxay leeyihiin qoys la yidhaahdo thunaa'iyatu takwiin qoys laba ka kooban nin iyo naag ama rag yani wiil iyo gabar oo caruur isku leh oo si sharciya isku guursaday ayaga sharcigooda bibalka isku guursaday kaas horta qoys ay u yaqaanin qoys aan weli isguursanin oo khaarija itaari zawaaj ah oo weli guurkii aan gelin laakiin wada nool oo caruur lehna qoys ay u yaqaanin way wada nool yihiin caruuray leeyihiin way isla degan yihiin laakiin weli ma isguursanin yaa internetka ku arkaa kuwo ku leh weli guur diyaar muuni waana wada nool yihiin waa isla hoydaan ilmee dhalaan laakiin waxay ku leeyihiin guur diyaar muunihin xoogaa wuu culus yahay ilmaha ayagaa dhaleen waxaa lagu dhalay saaxiibtinimo nuuc saddexaadaa jiro nuuca saddexaad waxaa weeyaan qoys waxaadiyatu takwiin ah hal qof uu ka koobay waa hooyo single mother ah ilmo haysata ilmahaasna aabbayaal kala duwan ay dhaleen ayadana qoys waayaa lagu leeyahy waa keligeed yaa waa single mother qoys kalaa jiro nuucii afaraad waay waa aabbe single father ah oo xaas aan lahayn ilmo islaamo kala duwan u dhaleenna haysta ama ilmo hal islaam dhasho haysta qoys shanaadaa jiro waa qoys laba qofood ka kooban laakiin waa hal jinsi waa nin iyo nin isqaba ama naag iyo naag isqaba nacuudu billaah ilaahay marka fitradiisii iyo abuurkiisii bay khilaafeen ilaah ilmo muu kala siinaya ilmo ma kala siina maxay sameynaya marka meel ilmaha lagu gataa jirtaba way soo gadanayaan magacoodii baa loogu abtirin attabani waa soo qaadana soomaaliya adoption wax la sameynayaan gabadhii markay 18 sano gaarto odaygii habartii oo soo fadhiisanayaan maxay leeyihiin hadda waa qaan gaartay naga guur hadda isbixi adiga meel iska bixi 18 sano markay soo gaarto waa soo guuray ninka saaxiibka daheeda u maanay meel isla degayn cunto u karisaa way isla joogaan laakiin still we are not ready for marriage kulay annaga ma aragtay guur diyaar uma nihin hadhow markay xoogaa shaqaystaan ee dhahayaan wallaahi haddaan diyaar u nahay guur haye ilmana waa u joogaan qaarkood ama uma joogaan maxay dhashay arrintaa maxay dhashay marka waxay dhashay in gabadhii wax ilaaliya iyo wax mas-uul ka noqda ee weysay dhashay wax qayim ka noqda inay weyso ayay dhashay
waxay kaloo dhashay in gabadhii la adeegsado waxay kaloo dhashay gabadha ninka markay isla joogaan wali ayagoo isguursan hadhow hadday isku xanaaqaan break up way kala jabeenba waa la kala tagay nin kale haddana u degaysaa waxay dhashay qofka sharci celiya inuusan jirin gabadhaani 10 nin ay 10 maalin la noolaa karto oo ay la hoyan karto ayay dhashay arinta maxay keentay marka in furiinku ku bato in ilmaha aan aabaha lahayn uu ku bato maxkamada maalin fiirsanahay gabar la keenay gabadha markii la keenay maxkamadaas waxaa loogu talagalayba oo lagu yaqaanaa DNA da qofka la baara gabadhan aabaheed iyo raadi 5 nin inta soo istaajiyay wallahi kii dhala ma aqaan waxaan xaq u leedahay inay aabaheed ogaatay iyo raadi ku leedahay tayib gabadhii markii la keenay ninkaana aabaheed la nin islaamada iska soo qabsan aabaheed waa la DNA waa la dooda waa la qaylna dad badanna way fadhiyaan yaa waa la dooda waa la qaylna DNA dii hadhow la keenay islaanta warqadii aqrinaysa maxkamadda waxay go'aamisay you are not the father adi aabihii ma tihid ninkii cunugiisii xisaabsanay oo korinayo oo lacag laga qaadayo oo bil laga qaadayo oo ximbaarna waxa la adi aabihii ma tihid haya nin kale keenaysa hadana aabaheed ma waxaa dhacay marka sagaashameeyadii islaan gabadheeda saa u keentay oo aabayaal u raadinaysa oo 5 aaba camal weys ayadii inta weynaatay oo ilmo dhashay isla maxkamadii isla barnaamijkii waxay keentay cunugeeda ayadoo aaba u raadinayso waa gabadhii sagaashameeyadii markii la joogay ayada aaba loo raadinayay oo 10 nin inta la keeno mid kasta la dhahay aabaheed ma aabaheed sheeg kuleeda hal habeen wallahi ma xasuusto anoo khamreysan baan kulanay baa laga yaaba ma xasuusto kuleeda يعني جد حراية ما جرو إلا وحياة وحنا وقت وح إلهي بني آدم كوكو أبو ريوه أيها نبكي هستمحوا منطقة مرك وحن مركز إلهي بني آدم كوكو أبو ري لكن إلهي محوقو تلقى لمنطقان جد توصن إلا قاضو جد كي لو قاضي لهانا في القرآن ويكو تالا من بدايته إلى نهايته مركا جد كا توصن وقاضو نوع بني آدم كان واسيجي رياه qoyskii muslimkan waa dhismaya mujtamaciina waa toosaya oo bulshadaana aragtay inay kala furfuranta oo isdilaysa dhibka laga haysto waa qoys laba jid maray qaadan marna way iska xiraan oo waxay waxaas dhan ma jiraan markaas ay ku kaantiin ilmo yar yaraayo inay kubsadaan marna waa sii daayeeno habeen kasta haday safarto midkay sii salaamtaba uur u sii qaadaysa ama waa iskala hooyanaysa anaga laakiin islaamkeenu waxa ma aha ilaahay wuxuu ka dhigay حاجة أما يعني بني آدم كجرتا سي بنزينك وكلا بنزينك ما يلاقي على سوامر كأنه مالكو حرية باورك مركل وشبع أنا ملغورش يا باورك بنزينك باورك مركل وشبع ملغو شبع ما يا مال محاجر تفورن وهذا حتى فورها الوحرة مركي حتى هذا الحرة ملسك الله بايد محل سمايا فورها الوحرة ماشي بنزينك الوش وفورها الوحرة ماشي صار الوش بي باورك يا كعينة سوي دقاجنا سا وماشي عربتاكو هذه لكن هدان بنزينك ماشي aan u xirin oo baawurka iskaga rusheeyo ama markuu meesha shidaalka yaal aan meel shidaal ku shubin maxaa dhacaya markuu dab yar arko maxaa ka dhacay ina meeshii qaraxdo baawurka aad meesha fiican ku gaar rabtay inuu kugu holco xaajada marka bini aadamka Ilaahay ku abuuray waa saas oo kale Ilaahay muxuu yeelay meelo iyo waqtiyo loogu talagalay iyo si fiican oo loo gudanayo Ilaahay u yeelay sidaas maxaa laga rabaa adiga inaad baratid kadibna jidka qaadid laga rabaa macnaha warka ma cad yahay